dalka Eritrea waxaa ku sugan kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo askar ah oo tababar loo geeyay halkaasi sanadkii 2019. xogta la xiriirta ciidamadaasi oo lagu sheegay inta u dhaxaysa 3 ilaa 7 kun ayaa in muddo ahayd mid qarsoon oo aanay saraakiisha dawladda si furan uga hadal. isagoo ka hadlayay dhawaan xafladii uu xilka ku wareejinayay ayaa madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markii ugu horeysay si furan uga hadlay jiritaanka ciidamadaasi oo dhan 5 kun oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhameystay dalka Eritrea. ciidankaasi tababarkooda waxay dhameysteen sanadkii la soo dhaafay dhexaad iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajeynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan ciidanka uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab. ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajeynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argagixisada ay dalka ku hayaan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha la doortay ayaa isla xafladaasi kaga hadlay arrimaha ciidankan. waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheenii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalka dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha. ciidamada iyo soo celintooda dadka u dooda waxaa ka mid ah Cabdisalaan Guuleed taliye xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Cabdisalaan ayaan weydiiyey xogta ugu dambeysay ee ay ka hayaan xaaladda dhalinyaradaasi. ciidanka Eritrea loo qaaday waa ciidamo badan. dawladda Soomaaliya waxay qiratay muddo dheer kadib waxay qiratay ilaa 5 kun. dhalinyaradii soo goostay oo ka soo lugeeyay Soomaaliya lugta ku soo galo ilaa 45 intaan xogtooda hayo aniga oo xiriirka aan la leeyahay gaarayaan. waxay sheegeen inay 5,500 ahaayeen. waxayna ka hadlayaan ciidanka meesha la yiraahdo Waaca iyo Baxarbaar iyo maaragtay dhinacaas oo xeebta Musawac iyo Casab iyo dhulkaas maaragtay mariinka loo tababarayay ahaayeen. ciidankaas dagaal Eritrea dagaal Tigray iyo maaragtay Ethiopia ma aysan gelin. ciidan waxa ahayn ciidan badda loo tababaray. nolol xumo iyo dhibaato badan oo la kulmay meelaha tababarka ay kala kulmayeen. qaar baa indhabeelay. dawladda Eritrea waxay u isticmaalaysay ciidankaas inay buuraha ku jebiso inay jidad ku dhisto inay yani way ku shaqaysanaysay. nolol xumo aad u badan daawo la'aan qaar ku indhabeelay. intaan xogta aan hayo oo runtii ay iga sheekay dhalinyarada meesha joogtay qaar badan isqabsa iyaga ciidamada Eritreanka tababaraya kamid ahaa u dhinteen. marka kuwa dad sidaas oo daruufo badan u dhintay way jiraan. laakiin intooda badan way nool yihiin. xaaladda hadda waa laga bedelay xaalad cusub oo magaalada Musawac oo Casmaro u dhow agteeda ayaa meelaha la geeyay. waxay kaliya ka cabanayaan waxa weeye qabow meeshaas xooga ka jira habeenkii oo dhaga 3 qofood hadda bishii la soo dhaafay maraan xiriir la sameeyay 3 amal ayaa nooga dhimatay qabow. dhar nagu filan ma haysano. waxay dhaheen aad waxay uga cabaadayeen nolol xumo iyo dhibaato ka haysata. ciidan kale waxaa jira marka xogta intaan ku hayo asagana tiradiisu ay badan tahay kuwaas ka agdhowdahay oo dhinaca baadame iyo xuduudda Eritrea iyo Ethiopia dhexdooda la geeyay oo ciidan infantry ahay. waana ciidamada aan aaminsanahay inay dagaalka ka qayb galeen sida aad ku aragteen warbixino badan la aaminsan inay dagaalkaas ku leedeen in badan oo kamid ah. kuwaas qatartooda iyo dhibaatadooda iyo noloshooda cid ka warhaysa maaha markii ugu horeysay oo ciidamo Soomaaliya lagu soo tababaro dibadda sanadihii ugu dambeeyay. waxaa ciidamada Soomaaliya lagu soo tababaray dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Uganda iyo Djibouti. laakiin sida ay qabaan dadka ka faalooda arrintan ciidamada la geeyay Eritrea ayaa waxaa cambaar gaara u yeelay 2 arrimood. in halkaasi lagu geeyay qorshe qarsoodi ah oo ay maamuleysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo in dhalinyaradaasi markii la qorayay loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. in lagu biiro ciidanka ma aha waajib qaran Soomaaliya si meelo badan oo dunida ah ka jirta. laakiin shaqo la'aanta iyo fursadaha oo yar awgood ayaa ku qasba dhalinyaro badan inay ku biiraan ciidanka. waxaa sidoo kale ka faa'iideysta daruufaha dhalinyarada haysta kooxaha argagixisada oo ciidamo u qorta. haddaba maxay shuruucda caalamiga ah ka qabaan in si qasab ah la isku askareeyo ama haddii qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada tababarka u jooga Eritrea la siray markii hore ama aysan ku qanacsanayn tababarka loo geeyay Eritrea. xasan shire sheekh oo ah madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika ayaan su'aashaasi weydiiyey. waa mahadsantiin colaad ama bahda VOA dhageystayaasha sharafta leh. marka koowaad arrintan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee 5 kun kor u dhaafay loo diray dalka Eritrea si ay tababar u soo qaataan
laba arrinba waa lagu jabiyey iyo arrimo kale oo maaragtay oo hadda aan la koobi karayn. arrinta koowaad waxay tahay in dadka la askareeyo waa in ayaga ay ka go'daa volunteer ah, waa shaqo, askarinimadu waa shaqo, inay dhahaan waa ogolnahay, meeshaas baa naloo wadaa oo lala baayactamo, meeshaas baad tegaysiin, tababarkaas baa laydin soo siinayaa, askar ka tirsan ciidanka baad naqanaysiin, ay saxiixaan ay ogolaadaan, tartan baa loo galaa, weli maaragta arrimahaas oo kale waa competitive, aad baa maaragta dhalinyaradu u jecel yihiin. marka labaadna waxay tahay, marka taasi waxaa lagu jabiyey wax la yidhahdo false pretense ayaa la sameeyey, waxaa la yidhahdaa been abuur ayaa lagu qiyaamay, meel kale baa shaqa lidiin geenaya baa la yiri, ka dambana meeshaas baa lagu shubay. marka waa dembi, iban xeerka ciqaabtu waa oogayaa dembi weeye in false pretense amba been iyo qiyaamo lagu sameeyo qof amba dad. kan labaadna waxay taasaan sheegay, askarinimadu waa shaqo, shaqadaasna waa in qofka laga dhaadhiciyaa, uu ogolaadaa, uu si volunteer uu saxiixaa. marka labadaas baa lagu jabiyey. waxaa kaleetoo jira in haddana meel kale, masrax kale oo dagaal aysan shuqul ku lahayn, oo laba wadan oo kale ay dirirayaan dhexdoodii, amba waddan dhexdiisa Ethiopia iyo Eritrea oo markaa ayagana duulaan ku ah qayb kamid ah Ethiopia, in laga qayb geliyey oo dagaalka ay ka qayb qaateen Tigray. taasna annada kale waa arrin kaleeto oo jebinaysa shuruucda caalamiga ah. marka intaba meel ka dhacay aad u weyn bay tahay. dhalinyaradaasi waxaan rajaynaynaa ayagoo fayad qabo in waddankoodii lagu soo celiyo, ka dambana maaragtay dib loo maaragtay oriented gareeyo, oo maaragtay ciidamadii markaa wixii fid u ahna lagu daro, oo hawshoodii waddankoodii lagu soo celiyo. tababarka loo qaaday dhalinyaradan ayaa soo shaacbaxay bishii January sanadkii 2021 markii warbaahinta bulshada lagu faafiyey in ciidamo Soomaali ah lagu dilay dagaalka gobolka Tigray, iyagoo xulafo la ah ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ee dagaalka kula jiray jabhadda Tigray ee TPLF waqooyiga dalka Ethiopia. dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia labaduba way beeniyeen arrintaas. marka kaliya ee ay dowladda arrintaasi si taxaddar leh uga jawaabtay waxay ahayd bishii January ee 2021 waxaana ka hadlay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Usmaan Abuukar Dube oo hadda xildhibaan ka ah baarlamaanka Soomaaliya. waxa uu beeniyey in ciidamo Soomaali ah ay ka dagaalameen Tigray, waxaana uu difaacay sababta aysan uga hadal arrinta ciidamadan. arrintu waa arrin ma jiro hal askarina inagama dhinto, hal askarina dhibaato inagama dhacdo, ciidamadeennina waa inoo caafimaad qabaan, iyagoo socda oo tababarana waa inoo imanaya. laakiin waxaan oo dhami waxa weeye waa wax la yidhaahdo divers, in la duwo dhibaatooyinka shisheeyo ay dalka ku hayaan. waalidiintu hal degmo ma joogaan, hal gobol ma joogaan, hal state ma joogaan, every corner stateyada dalkao dhan bay ka yimaadeen, every stateyada dalkao dhan ayay ciidamadu ka kooban yihiin. waxaan ugu qalbi qaboojinayaa in wiilashoodu fiican yihiin, ay caafimaad qabaan, de wax qarsoomana ka weyn ciidan. waana aan rajaynayaa in aynu mustaqbalka ka maarmi doono tababar dabadeed, ciidamadeennuna isku filaan doonaan, cadowgana aynu ka adkaan doono. dhawaan markii madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha xilka kala wareegay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka hadleen arrinta ciidamadan, waxaa dib u soo xoogaystay rajada waalidiin muddo ka warwarsanaa badqabka ubadkooda. Bariima Isaaq Warsame waxaa ka maqan 2 wiil oo ay dhashay oo la kala yiraahdo Yaasir Cabdullaahi Axmed iyo Bashiir Cabdullaahi Axmed. waxa ugu wardambeysay muddo haatan 4 sanadood laga joogo. walaalow meelow ila tiriyay mar laga sheegay hooyaanahay aabbo waa iga daran yahay, warkeeda daa ma hurdo, ma seexdo, ma hurdoodo, ma jiifo, cunto ma cuno. waxay ahayn wiilkayga macallin iskuul jaamacad dhameeyey, macallin dugsi marow noqday. Bashiir Cabdullaahi saasoo ahay, Yaasir Cabdullaahi dugsi dhaxow ahay, quraankana waa dhameeyey. ilmaha dadaa dhalay waa korsanay, waa suxunan ku korinay, xamaalan ku korinay, biil kuma soo korinay iyo mushaar odayguma qaato. hooyo Bariimo ayaa codsi u jeedisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha cusub kama waxaan raganimadiisa hadduu waa dhalnay oo intuu na xishmeeyo noo keeno waa u mahad celinaynaa. waa sharafan yahay hanoo keeno, hadduu isagu dhaamo farmaajo hadduu dhaamo hanoo keeno. Biyood Gaarane Cismaan iyana waxay ka mid tahay hooyooyinka ay wiilashu ka maqan yihiin. waxaa iga maqan wiil yiraahdo Baashi Cabdi Cali, markii igu war dambeysana wuxuu yiri Eritrean jooga. hooyo cabiidis badan meeshaan imaashadeeda aniga waa ka qoomamay, waa la soo saray cunug la soo qaldo oo meeshaan la keenaan ahay, meelan ka baxana ma aqaan. kayga 16 sano jiray, 16 sano jiray, ciyaalka xaafadda ahay, banooniyow dheeli jiray, waa la iga tashiiliyay. dawladda qortay aniga ma ogeyn, cunug aqligiisu kala go'ana ma ahayn. halkii marna oon warkiisa helayn inuu wiilkaas cabiidis badan oo ku jiro, oo qaab badan oo muxuu ahaantay oo ku jiro, inuu soo bixi karin, oo wadankii meel uga soo baxana oo na garanaynin, inuu muxuu ahaantay dhibaato fara badan oo ku jiro.
inay derbiyaal dhisaayaan in qoryo lagu guraa dhib fara badan oo ii sabaan markaas aniga aan xamili waay markaan la hadla hadda saan waxaan ku moogahay sanadii bar sidoo kale hooyo biyood ayaa madaxweynaha ka codsatay in wiilkeeda loo soo celiyo madaxweynaha cusub oo xilka la wareega xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanaa wiilkayga inuu hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto inuu ugu soo sabarsiiyo cunugaygiaan ka rabaa maxuu anta xasan sheekh maxamuud hadduu farmaajo ilmeyna gatana inuu maxkamadda ii saaro qoyska cumar maxamuud wardheere waxaa ka maqan wiilkooda cabdirasaaq cumar oo 18 jir ahaa xilliga la qaadayey cabdirasaaq ayaa qoyskiisa waxa uu la soo hadlay 2 jeer muddo 4 sano ah oo maqnaa walaashiis Muna Cumar Maxamuud Wardheere ayaa ku faraxsan hadalka dhawaan ka soo yeeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ah in dawladdiisu ay ka shaqaynayso sidii dhalinyaradaasi dalka loogu soo celin lahaa aabay waa 8 jir waxa weey waa ka walwalaya wataani shay wiilkay waa uu yaraay ilmaha marka 18 sano jiro ahay cunug weligii meel aad ma ahayn marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha cusub inuu ilmaheena noo soo celiyo wallahi waan ku faraxnay marka uu asiga yimid ayaa nala hadlay awal wax nala hadla ma lahayn waxa weey ilmaheena in keenaya awal qofna ma lahayn qofna ma soo hadal qaadeen waa mudaharaad wax walba sameyn wax nala hadlo ama ilmihi noo sheega waa leen hadda markuu ilmihiina waan soo celinay waan ku faraxnay waan u duceynay waan ku faraxsanahay waan taageersanahay ilaahayna casaawo jalaana hala garab galo sida ugu dhaqsiyaabo ilmaheeni inuu noogu soo celshan ka codsanayna madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud maalin walba hooyaday waa ka fakartaa aabay dhiikar buu qabaa hooyaday dhiikar bay qabtaa maalin walba way ka walwalayaan codsiga koobaad aan dirsanayna waxa weeye madaxweyne midkii ummadda Soomaaliyeed u adeegay hooyooyinka murugta ka bay'iyay allaha ka dhigo codsigeyga anigu intaas buu ku egyahay Abba Cumar Maxamuud Wardheere oo ah 80 jir indhahala ayaa isna ka hadlay maqnaanshiyaha wiilkiisa codsina u diray madaxweynaha Soomaaliya wiilkayga meel uu jiro ma naqaan awal waxaa la geeyaha waxaana loo sheegay oo nogala waday qadara la geeyaha la yiri qadara nogala waday qadara la geeyaha la yiri lamana geeyna la yiri kabacdi waxaa la geeyay alatireeya la geeyay madaxweynaha waxaan ka codsanayaa 8 sano jira waana indhalacay meelaan fadhiyaa madaxweynaha cimrigiisa Allah dheereeyo cadaabkeena Allah ka korsho waxaan ka rabaa inaad ilmahaas aad noo keento waxaan ka codsanayaa inuu meel alle wiilkaas iyo wixii la jira inuu noo keeno qaar ka mid ah waalidka dhalinyarada maqan ayaa sida uu barnaamijka Elayska xog ku helay dhawaan la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo ka codsaday soo celinta dhalinyaradan oo ka mid ahayd ballanqaadyadiisii ololaha doorashada taliye xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed ayaa qaba in soo celinta dhalinyaradan aanay u fududeyn sida dadku moodayaan loona baahan yahay taxaddar dheeriya iyo hawl adag waxay u baahan tahay arrintaas ciidankii warkaalay iyo wax la yiraahdo ma jiraan ama meel ciidan joog la soo qaadaa ma ahan siyaasadda ku hareeraysan sababta meesha u joogaan sababta loo geeyay kuwa dhintay maxay jiraan kuwa nool maxay yihiin faylashooda in la helo oo lagu recruit gareeyay oo lagu qoray laana hadda waxa ka maqan aadan aqoonin waxa aad keensanaysa ma taqaanin hadda 3 kun sool aad hesho eelwa 3 ay ahaayeen waa dhigi karta maya faylashu inta way ka badayeen ciidankaas markii la qaadayay dokumenti sax laga ma qorin baasaboor ma aysan lahayn shahaadooyin ma lahayn ID card looma sameeyay habeen badan ayaa diyaarada lagu daadgureeyay si qarsoodi ayaa lagu xulay meel qarsoodi ayaa lagu xulay waxay u baahan yihiin taxadir dheeraad waxay u baahan dadaal baaritaan dheer waa arrin qaran weeyaan arrintaas arrin qaran oo qaranka Soomaaliya horta la weeyaan